wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland heer qaran iyo laanta gobolka Awdal ee wasaaradda ayaa maanta waxay si wada jir ah magaalada Boorama uga daafureen diiwaangelinta cashuur bixiyaha iyo lambarka aqoonsiga cashuuraha. barnaamijkan ayaa noqonaya barnaamijkii ugu horeeyay ee laga daafuro gobolka Awdal. munaasabaddan ayaa subaxii hore saaka waxay ka qabsoontay hoteelka Sawe magaalada, waxaana ka soo qayb galay goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, odayaasha dhaqanka gobolada galbeedka iyo ganacsatada kala duwan iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeen halkaasi ka hadlaysa markaana hadalka iba furay gudoomiyaha cashuuraha bariga ee gobolka Awdal Cabdullaahi Aadan Nuur, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay mashruucan ay maanta ay ka daafureen. maanta waxaynu halkan ku daafuri doonaa barnaamij cusub oo la xidhiidha cashuuraha bariga, kaasoo ah gobolkii labaad ee laga daafuro oo kaliya waxa inaga horeeya gobolka Maroodi Jeex ayaa laga daafuray. inaguna waxaynu nahay gobolkii labaad ee laga daafuro. waxa nasiib ah oo farxadii aniga maamul cashuur bari ahaan in aynu noqono gobolkii labaad ee laga daafuro barnaamijkan cashuurta. barnaamijkan oo ka kooban dhinacyo badan danna u ah bahda ganacsatada iyo wasaaradda horumarinta. intaasi kadib waxaa dhankooga iyaguna hadalka iskaga kala dambeeyay mas'uuliyiintii ka socotay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee heer qaran, maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama, odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada kala duwan ee gobolka, waxaana dhammaantood ay soo dhaweeyeen barnaamijkan maanta ay ka daafureen magaalada. anagu haddaan nahay shirkadda Abshil Group, hadday noqoto shaqaale, hadday noqoto si guud oo maxaan ku qaabkii ama maxaan ku raxweeye maxaan ku deeqaha guud ee gobolka intaba runtii horena diyaar baan ugu ahayn, imikana diyaar baan u nahay, waana soo dhaweynaynaa wax Allah wixii horumarka gobolka iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. waxaan u sheegayaa wasaaradda maaliyadda ganacsatada maslaxadeedana in wasaaraddu ay ka shaqayso cashuurtana in la bixiyo, waayo cashuur la'aani waa horumar la'aan. shurbiyaha uu ka qaado waa arrin wanaagsan in wax la isku ogaado. maanta arrinka halka lagu daafurayaana nasiib baynu yeelanay gobol ahaan iyo degmada gaar ahaan degmada Boorame ama magaalada madaxda gobolka Awdal. waan soo dhaweynaynaa, waan kula shaqeynaynaa, ganacsatadan kula shaqeynaynaa, wasaaraddan kula shaqeynaynaa. in hawshan maanta halkan loo fadhiyaa ma aha mid fudud runtii, waa mid dhammaanteen ina wada taabanaysa oo dan inoo wada ah. waxaan u malaynayaa marka cashuur bixiye marka laga hadlayo, dadka ugu horeeya maanta mudan baa tihiin in la tixgeliyo hadalkooga. aad baan u soo dhaweynayaa, waxaan leeyahay idinkuna dee nagala shaqeeya, waxaan wadnaa muxuu ahaayey faa'iido u dana taxpayerka iyo wasaaraddaba. aad iyo aad baan runtii aan u soo dhaweynayaa. waxaan leenahay soo dhawaada, dee waa waddankiinnii, waa goboladiinni iyo dhulkiinnii weeye. waxaan leeyahay aad iyo aad u soo dhawaadaan leh. aad iyo aad baan isu soo dhaweynaa qoladiina waftiga ee Hargeysa nooga timiday iyo inta soo agaasitay hawshanba. gobolkii labaad ee laga furay weeyaan kol hadii la yiri, horta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. horta cashuur lagama maarmo. magaalada Boorama waxay ku taabagelaysaa hadba dakhligeegu intuu noqdo iyo ku taabagelaysaa oo ay cududeedu ku muujin kartaa. marka hore daafurkan horta aan wax daafurayna waa nambarka qofka cashuur bixiya la siinayo. inteena meesha fadhiya qof walba wuxuu leeyahay telefoon number buu leeyahay. telefoon numberka qof kale oo sita ma jiro, numberkaas buu qofkaas sita. haddaan iminka salaadiinta islaada dhowal garaac amba mid kala garaac, telefoonkiisu baan garaacayaa. waxaan horta iminka meesha aanu idin keenay numberkii ganacsiga weeye, waa numberkii qofka u gaarka noqonayay. Soomaaliland oo dhan numberka qaadanaysa. sidoo kale intii ay socotay munaasabadani, shahaadooyin liisiga aqoonsiga lagu gudoonsiiyay ganacsatada kala duwan ee gobolka.
si kastaba haatee maamulka cashuuraha beriga gobolka Awdal ayaa intii uu xafiiska u joogay waxa uu deegaanada iyo laamaha kala duwan ee gobolka Awdal uu ku soo kordhiyay fiisa loogu talagalay in cashuuraha lagu bixiyo. Waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishinka caalamiga Star TV Boorama.